haddii aad doonayso inaad ogaato gabadha aad la socotaa inay tahay calafkaagii iyo inaanay ahayn waxaad samaysaa qori soo qaado kadib ku dhufo haddii ay dhimato oo riid calafkaagii ma ahayn badde way dhimatay ma fahamtay laakiin haddii noolaatay ina ku dhiman magaranaysaa rasaastaa la dhacday waa abti waa calafkaagii maa kaa wada guurso ragga wax khiyaama ee dumarka khiyaama iyagoo xaas le hoostaa wax ka wada yaa ama isagoo de saaxiibad le hoostaa wax ka wada sidaa wax u kala wada waxaan u rajaynayaa nolol xun iyo inuu nafsi qabto gabdhaha iyaguna sidaas oo kala sameeya iyaguna wax khiyaama waxayna sameeyaan garanaysaa waxaan leeyahay saaxiib qaladku wuu dhacaaye au bixiniyo shaaracsiin dunida nafsiyo waxaas waa dhaga u dhiginiyo yaa inana yaba qashaa qaladku waa dhaca qalad baa kaa dhacay waxay weligeedna qaldami jiray qaladna waa la sixi jiray soo ma hadde maxaa u bixiniya afurka ka hor waxaad ogaanaysaa xaaladda ay ku jiraan dadka fuqarada ah ee dee mar walba gaajada la nool صح afurka kadibna waxaad ogaanaysaa xaaladda ay ku jiraan dumarka oo kale iyo culayska ay ku haysa baasha u hiili walaag ilaahay amarkiisa ay soo qorina maanta hoos fadhidaa meesha aan maanta fadhidaa ay soo qorina hala yaabin haddii aad aragto naag kale ku dhahaysa xabiibi iyo waxyaabo noocaas sababtoo ah ayaamahan waxaan ku arkaa wadooyinka iyo meelaha riri kala fuuqlaysa والله وسبناخ والله هو الاسرق يا ديو gabadhay bal commentiga ku soo qor inta aad doonayso meherka in laga bixiyo waa Ramadan waa bil barakaysan waxa laga yaabaa inuu ribelay ku soo galo nin ama de wiil kugu qaadan kara صح waa Ramadan wax walba filo soo qor yaa dacaqabto waliga iyadoo hindasa ku haysa isku celin hindasa waliga isku celin meel kasto joogto ha la xishoon war iska hindis hadii kale waxa laga yaabaa inay ku khiyaanto meel kale ka baxday yaa ilaa waji bare ma taqaana faa'iidada labaad ee dhigtu leedahay maqalka mooye faa'iidada labaad ee dhigtu leedahay ma garanaysaa de waxa weey markaad xidhanayso ma aragtay muraayado ma de okiyaasa u taqaanaba tusoo kama suurtid dhigta dhigta la soo sama hadii waa faa'iido يا لهدين دغل هاي ka dhici lahaayeen dhaga bisha Ramadan isku dayin inaad qof walba farxad geliso oo qof walba farxadiisa ka taliso la adigu ma tiid eedaanka salaada maghribe ya gabadhay hadii wiilka aad la sheekaysataan waliba ku soo doonan raba oo adig iyo hooyadaas la socda suuqa maraya oo orod ku dhaafo balay ayna samooyi hooyada ku tiraahdo qofka maqiiqsan foosha xun li muxuu ahaa waxaasoo kala jiro ordayo aan dadka ba eegin maxaa sameyn lahayd anigu waxay weydiiyay marka aad kaliya tahay ee aad fikirayso luqad nooc ee isticmaasha anigu carabi ma gartay cammi yaa akhi baby lacagtaada ma baahni oo lacagtaada waxba ku fali maayo ee waxa iga badan oo anigu iimaansanaya oo ku qanacsanahay jacaylkaaga kalgacaylkaaga farxadaada iyo daryeelkaaga gabadhii ugu dambeysay ee hadalka aad tiri waxay dhimatay 1950 ma soo dhawaan dadkan idahaya bariga adirida qurux badneed oo wax yaro macaano biskido cadnaan aad ahayd ma garanaysaa waxay waa deegaade googa igada dumarka iska bulada waxa lagu gartaa ditaan waxba isla hayneen la qabin waxa lagu gartaa habeenkii markay seexanayso ay soo qortaa historiga ama WhatsApp statuska waa seexanaya habeen wanaagsan waa ka sii dhacay xagga ku la qaban aroortii soo qoran alxamdulillah حبيبي بريغ وران isla sheekaysan jirnay wada casho geen jirtay wada iga farxin jirtay hadalla macaan bad idin jirtay wada dalxiis geen jirtay iimka maxaa ku helay ma waxa aragtay adigu musharax ku guuleystay doorashadii ama kursiga uu rabay oo ilaanka Allah sii wada ayaa timaari hay toobada duubo noloshu waa haween aad u foof oo ninkeedu ku yiri waa qurux badan tahay kadibna khiyaantay fariin ku socota hablaha hadda shugaasiga ku jira haddii aad aragtaan wiil qurux badan oo toosan beena sheegin deeqsina ah dumarkan daba cararin dilakaas waa daanyeere
haddii uu macalinkaagu ku yidhaahdo jooji daawashada ciyaarta sababtoo ah waxaad daawanaysaa nin shaqaysanaya oo shaqaysii ku jira oo kubadda lacag ka samaynaya ayaad waqtigaaga kulminaysaa waxaad ugu jawaabtaa macalinkaa macalin adigoo waxii dhigaya ayaad shaqaysaa oo waa ku daawadaa dee adigu lacag baad samaynaysaa ismudin baa tiinigeed baa kaa daawadee وي walaalkay qaaliya kusoo dhawaad jigjiga والله بلا ميل وحوان كل إلا بشيطان wadaxladayda laga wada dhigay horto ada nuur nus ma anti ka tagtid mo waxa dudu caadi rag wada lacag helan wuxuu ku fikiraa naagaha inay badsadaan naagu baatay lacag helan waxay ku fikirayaan inay ragga ka maarmaan ilaahay wadna artay labadeedu dhinna waxba siin shiid naga dhig adigoo haysta tekno ama ay tiyaro jajabay ina saaxiibada u iibso iPhone 2 alif ama de iPhone 13 waa qayb kamid ah lagu sixray waa sixir ninka ragga markay xaafada istiraan uu iskaga tagaa intuu go'aan qaato ilaa waa nin rage laakiin gabadha markay xaafada istiraan intay baxsatay qol iska soo xidhay seexata aniyo aabahay baan weydiiyo kuuri walaaba imika nin weyn baanay oo gartay inaan gadhiga fuur balay ahayd aroos baan doonay inaan guur oon dee maxay ahayd wax guursadee lacagta guurku imisay igu kacaysaa oo igu qaadanaysa wuxuu igu yiri eray aanu qaadan waayay oo ilaa imika madaxa iga weynaaday wuxuu yiri aaba ma aqaan wallahi ilaa imika waan bixiyaa ilaa imika bisha rugo amaanga nin Soomaaliya ugu imow isagoon meherkii xaaskiisa dhiibin oo aan wali siin oo u ballan qaaday uun hata eeg inuu naa kala meher kala u saxiixo oo yana u ballan qaado mar walba waxaan maqlaa qada sharaf casha sharaf horta miyaanay jirinba quraac sharaf ya tan quraaciyad ma habar qabta horta teeda kale iyada ka wada horeysa de qadadii iyo cashadaba quraacda ka horeysa de anigu hala sameeyo quraac sharafna gabadha guurdoonka ah ee guur u jeeda mustaqbalku ka go'an yahay waxa lagu gartaa profilka ay soo saarataa sariir diyaarsan iyo bedroom diyaarsan iyo eeg faanti hada aragto waa guurdoon hadhaaf duni waxaan joognaa ragii lagu kari laayay waa baswaari kor u qaata hagaad dabadu uga rideen miyaan ilaahay ka cabsan waxaan wadhan gaalaado inama fiicne dumarkiina lagu kari laayay aaba marada hoos u dhigo hagaad isla faydees la qaawis ya waa dunista marka ku dhisande wixiba aniyo Soomaalidu waa dadka adduunka ugu dibka badan ugu cajiibsan marka lagu leeyahay Soomaalidu wax hadba meeshii ay joogto wallahi been maaha waxa halkaas nin shalay ka dhoofay shalay maantana ku qortay Facebook ama meelaha Suhayb Suudan Fadhi Norway daahir Canada faan wala ma ku qoratiin huda oo bare ilaa oo barad ka dhooftay tahay qabri bayax ilaa qabri bayax ka dhooftay madaxa xiriyaha dhadhaab been baad xagaad durba aad ku mooday inaad maxay cadaan yartay aniyo dad baa yiraahdo xishootid oo no face baatay wallahi wariga ma haysan wallahi war xishood heerkaan marayo leenta tiirka kama siibadee sababtoo waxaan ka dhacay inaan arko iyadoo qaawan waxa la yaabay hablahan loo bixinayo magaca geedaha sida ayaa u baxay tufaaxay rumaanay saytuunay liinood waa ilaahay baan kugu dhaarshay waxa daanu markaa fikiray waxaan isiri waalidkooda isku bartay labada waalid isku bartay geedo baxa hoostii iyo geed liino hoostii iyo geed tufaax hoostii ku saytuun hoostii de markaa waa xasuus reeb qof dhan ba laga dhigay magaciisa xasuus reeb isaga masaajidka safka dambe toosiya iskuulka safka dambe waa musa baska safka dambe lacagaha soo ururiya ururta safkan dambe maxaa ka qaldan dad ilaahay isugu keenay xaaska daacadii waa xaaska habeenkii oo dhan soo jeeda si ay u ogaato inay ninkeeda kanaa cunayso iyo in kale waa niyow saaka markaan soo toosay man tiifigiska dhaxarkay anigii yaabay wixii qaadan waa igu noqay qof kale u yeeray weydiiyay qofkan ma aniga hawa adiga farxad kala batay maalinka tiifigiska dhaxarkaya laakiin sababta baad garanaysaa dee tiifigaa dansanaa markaad aragto nin weyn oo gabadh yar oo dhali karo u qoraya xabiibi naca baby noloshaydi ayaad ogaanaysaa inaanu qooqo xishood iyo xad toona lahayn
waxaad arkaysaa qof Afrika kula jooga oo haddana ku dhahaya fursad Mareykan ma ku hayay Mareykan ma tagaysaa yaa adu maxay u tagi weyday adigan ila sidaas maxay u tagi weyday ma adu Mareykan ma joogtaa maya soo ahaatay ila Afrika ila joogtaa maxaa ku diiday nagala tag war xalay annagoo saa wada daawana anagii faamiligu iyo dulsaarka xaafadda gebi yaa TV-ga oo jawigu noo baxayo ma sha Allah ma garanaysaa buu filinkii soo galay in yar romantic hal mar bas halay soo wada eeg bising sababta ma garanaysaa remote kan hayay fahant waan ma qarad ban ku in romantic soo galo anu ma directorkii filinkan aan jilaagaan wadnahay hoos irida qof aad status kun isku daawataan oo idaan isbaba aqoon baa ku dhahaya wala ramadaan baa soo galayse aan saafin haariyahe in la saafiyo maana ka horeyn in la yaqaana in aqoon la isku leeyahay ka horeyn yaa nagala tag Soomaali baa laga helaa niman xaas ba lahayn hada midba oo hadana afar ku haminaya tamidba ma hayo iyo gabadh ka hinaasaysa ama ka sii maseeraysa in la guursado hada lama qabo imika iyo laba qabin ay ku leedahay hadii la guursado ma doonayna la guursado saddex wada lawdina waxa ma haysan Soomaalidu wallahi waa dad dib badan